السلام عليكم كسو دوادا موضوعا كغا hadlayno qiimaha hooyada hooyo waa albaabka aad dunida ka soo gashay waana albaabka aad jannada ku gali doonto insha Allah sababteeda waa haddii aad hooyada u baarinimo fasho ayaad ku helaysaa marka waalidiintaada baari u noqo oraah iyo eri tixiyo tiraab midna laguma soo koobi karo qiimaha iyo qaayaha ay hooyadu ku leedahay nolosha aadamaha iyo ifkoo dhanba lama inkiri karo kaalinteeda mugga iyo miisaanka ku qotonta sidaasoy tahayna waxa ayaan daro ah haddii aan ka irdhowno isxasuusinta qiimaha hooyada hooyadu waa lafdhabarta wax allaale wuxuu eebba uumay gaar ahaan aadamaha waxaana shaki la'aana in lafdhabartu ay tahay waxa keliya ee wax walba la'aanteed aanu taagnaan karin ama aanu jiri karin hooyadu waxaan oran karnaa waa nimcada ugu weyn uguna ballaaran ee Ilaahay ku galladay uumiyaha hooyadu waa iftiinka ubaxa aadamaha dhammaantiisba iftiinkaasi hadduu damana dhammaanba aadamuhu wuu dhammaan lahaa sida shamaca la shido u dhammaado waxaa kale oo aynu ogsoonnahay in diinteenna islaamku ay si ballaaran uga faallootay korna u qaaday qiimaha iyo qaayaha hooyadu leedahay sidoo kale nabigeenna suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu isna si waadaxa dhankiisa uga warbixiyey mugga iyo miisaanka hooyada iyo sidoo kale mansabka ama martabada hooyadu ay ku leedahay nolosha aadamaha qiimaha iyo qaayaha qadarinta iyo xushmaynta intaba waxa inaga mudan hooyo macaan waxa aynaan malaysan karin hooyadu inay tahay qofka ugu samirka badan uguna dulqaadka badan uguna xushmaynta badan marka loo eego ilmaheeda wiil iyo gabar ku ahaadaba si kastoy ahaataba waxaanu qof kastaa inkiri karin inaanu raalli ka ahayn hal ilbiriqsi inuu dhabarkiisa ku qaado qof kale oo nool haddaba hooyadu waa ta keliya ee raalli ka ah in ay dhabarka u ridato ilmaheeda muddo aad u dheerna ku sito sidoo kale hooyadu waa shakhsiga keliya ee u badheedhay inay 9 bilood uurkeeda kugu qaado hooyadu waa qofka keliya ee u golon gashay inay ilmaheeda dhib iyo xanuunkiisa u kulul uguna rafaadka badan hooyadu waa qofka keliya ee moogtay raaxada iyo nolosha macaan ugana doorbiday xanuunka rafaadka silaca balanbalka iyo nolol aan raaxo lahayn isla markaana u hibaysay nolosheeda raaxadeedii inuu ku noolaado ilmaheedu sababtuna ay tahay 25 sano ee ugu dambeysay ummadda Soomaaliyeed meel ay jaan iyo cidhib dhigaan lama arkeen waxaanay ku biiri lahaayeen ummadaha caalamka sida tooska ah uga dabar go'ay sababtuna ay tahay dagaalo hor leh oo aad u tiro badan oo la soo darisay awgeed waxaanu oran karnaa jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waxa kaalinta koobaad ka ciyaaraya mar walba waa hooyooyinka Soomaaliyeed iyaga oo u adkaystay u samray una babac dhigtay dhabarkana u ritay silaca iyo saxariirka dagaalada iyo qaraxa nolosha adagee dhibaatada leh hooyooyinka adduunweynaha dhammaan gaar ahaan hooyooyinka Soomaaliyeed Ilaahay waxaanu uga baryaynaa in Ilaahay xaqooda gadaal ka siiyo camalkooda oo saalixana Ilaahay midigta ka siiyo
ilaahay waxaanu uga baryaynaa in ilaahay intooda dhibaataysan dhibta ka korfaydo, intooda xanuunsanna ilaahay caafimaad sareeca ugu beddelo. aamiin aamiin aamiin. waxaanu ogsoonnahay qiimaha iyo qaayaha hooyadu leedahay in ilaahay qur'aankiisa kariimka ah inoogu sheegay. sidoo kale nebigeenna suuban naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu inoogu iftiimiyey axaadiis aad u tiro badan. haddaba aynu isku dayno inaynu soo qaadanno xadiiska saxiixa ah ee ka hadlayay xaqa waalidka. nebigeenna naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa waxa u yimid nin, wuxuuna ku yidhi, rasuulkii ilaahayow, yaa dadka iigu dhow iiguna horreeya, isla markaana aan wanaag u falaa. rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee wuxuu ugu jawaabay, hooyada. ninkii wuxuu ku celiyey, yaa kale rasuulkii allow? sidoo kale rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu ugu jawaabay, hooyada. ninkii waxa uu ku celiyey, yaa kale rasuulkii allow? haddana rasuulku naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee sidii si la mida waxa uu ugu jawaabay, hooyada. ninkii ayaa waxa uu ku celiyey, yaa kale rasuulkii allow? markaas ayuu rasuulku naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ugu jawaabay, aabbaha. waxaanu aragnaa in rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee uu 3 jeer ku celiyey xaqa ay hooyadu leedahay diinta islaamka dhexdeeda. haddaan isku dayo ra'yigayga ama fikirkayga ku aadan mowduucan qiimaha hooyada in yar oo kooban ku baraarujiyo shacabweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay ku nool yihiin. gabadha Soomaaliyeed ta aan hooyada ahayni beri ayay noqon hooyo insha Allah. ta ahina waa hooyo oo mowduuceena ayaan kaga hadlaynay xaqeeda. haatan waxaan odhan lahaa in la dhowro hooyooyinka iyo dhammaanba gabdhaha Soomaaliyeed, loona dhowro sida ugu macquulgalsan. mar walbana ay noqdaan qofka xaq mudan wax walba iyo goor walba. waad ku mahadsantihiin daawashadiina quruxda badan. intaas ayaan jeclaystay inaan idinla wadaago maanta. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalka, ku qabo calaamada ka helitaanka, lana wadaag asxaabta aad isleedahay muuqaalkani wuu anfacaya. sidoo kale ka mid noqo walaalaha ku xiran channelka.